Hayat Hospital. Allah arikaya awo isbde baydawo meelani kinjeyna male ama sekuwele ilaahu nagay caafimaad inkashan Hadija abo ma unagun suuyo may daari walaalay walaalo nagumo oo jirana baydawo afartiya gees meelani injeyna male sakusale bismillah tijrisu looyay hayat jeekay ma Allah hinjo adiba ka taatiiday ma ad mooshiidi anti hayat la kamiirsaday bilaan imagali awlaad tattiidi oo geeka daawadiyo meelilay taalo walaagi hamar iyo ne Kenya lanka baafadi meelil ku helaayo taktar haliinki eroog aad ma ku warqabto ma unagun ka daayday habba hata ana ka jeeyay habba inna hadii jey qeyr alla ka siya waxaan joogaa oo dhakhtarka oo ka shaqeeya isbitaalka Xayaat ee Baydhabo shaqadeedina waa qeybaha cudurrada guud ama dhakhtar cudurrada guud oo ah medicine waxaan isbitaalkan ka ahay dhakhtar oo waqti hore isbitaalka ka shaqo bilaabay ilaa iyo muddo dhowr iyo 10 sano ah waxaana joogaa qaybta Baydhabo ee Xayaat Hospital isbitaalka Xayaat waa isbitaal ka shaqeeya bukaan socodka iyo bukaan jiifka wuxuuna muddo dheer ka furan yahay magaalada Baydhabo Janaayo waxaana loo aas-aasay in bukaanada lagu daweeyo loogana daweeyo cudurrada markaa ku haya dhibaatada ama uu la ildarin bukaanka ayadoo ay tahay shaqada aan qabto cudurrada guud waxay ugu badan xanuunada awaada ee la kulmo internalka cudurrada ku dhaca dheefshiidka sida cudurka gaaska sida cudurka hepatitis B-ga ama C-ga sida cudurrada bakteeriyada ay keentay ku dhaca dheefshiidka waxaa kaloo meesha aad ugu badan xanuunada malaariyada sida maqaarka kuwa ku dhaca oo kale marka shaqooyinka aan ka qabto waxa ugu badan waa inta ila alla kasi nahabooga maaso hamiin igeena isku halma ee Hayat isbitaale hormuudsawa bulshooyinay taasi migin giliya cudurada halaaga ee awlaadaha laayayaan iyo handadka wiig nolol ku hor surumayaan dhatiyo baaristiyo iyo daawadiyo waysiin haaye haroora kooya bulsho Hayat Hospital way baa la siin ku baaray waana la siin ku daawiyay dhammaan cudurrada ka dhiyaw bini'aadinka jirshay raajo iyo diyaarsiinka ee shaybaar casri ah leeyi kombiyuutarreedis israab galan oo aaladoogi inka dambooyan ilma baarista hasaaren oo la kabaaraw dhiigaga dhacaanada saxarada kaadida iyo onaykii uurka jarka luku ogaaday oo la eraw ultrasound iyo wiliba daawad dalabaad gaar ee ku kooytay oo luku sheeni magaalada Jidda ee dalka Saudi Arabia oo irbidi kaniimba oo la siinko ku daawayaw nerviya magaarka oo jiridi iyo wiliba tiibeerka la ka daawayay Hayat Hospital way baa usliya farmashi casri aan daawad tayile la ka gadaw way baana meelaha siinka dhawaayayana shaqaala eedlinka tababari hooliyo gobadaayan ee bulshooy angoogateena hadeera Hayat Hospital isbitaalka Xayaat waa isbitaal casri ah oo private ah wuxuu shaqeeyaa 24 saac isbitaalka Xayaat wuxuu ka kooban yahay ilaa 4 qayb qaybta OPD waxa fadhiista 3 dhakhtar oo ah dhakhtarka cudurrada guud oo la yiraahdo Dr. Maxamed Cabdi Ibrahim Dr. Shahid oo leh khibrad in ka badan 20 sano kana soo shaqeeyay gobolada Soomaaliya guud ahaan sidoo kale waxa fadhiista isbitaalka Xayaat dhakhtarka habeenka iyo hooyada uurka leh waxaana lagu magacaabaa Dr. Maxamed Cabdi Maxamuud Dr. Maxamuuli doctorku wuxuu ka soo shaqeeyay isbitaalo fara badan oo ku yaala caasimadda Soomaaliya magaalada Muqdisho wuxuu haatan ka howlgalaa qaybta hooyada uurka leh iyo hooyadaba wuxuu qabtaa doctorka daaweynta habeenka wuxuuna leeyahay khibrad ku dhawaad 6 sano wuxuuna ka soo shaqeeyay guud ahaan isbitaalada ku yaala magaalada Muqdisho sidoo kale isbitaalka waxaa fadhiista dhakhtarka caruurta wuxuuna leeyahay qayb saala ah isbitaalka sidoo kale waxaan bulshada Soomaaliyeed ugu bishaareynaa ay gaar ahaan bulshada reer Baydhabo in isbitaalka Xayaat sanadkan bilowgiisii uu heshiis la galay
kambaniga caymiska ee Som Takaful waxaana bulshada Soomaaliyeed ku nool magaalada Muqdisho magaalada Beedhabo aan u sheegaynaa inay mataqaanaa ku xirmaan isbitaalka Xayaat horena waa ugu xirnaayeen haddana waxaan rabnaa inaan ogeysiino in isbitaalka Xayaat uu adeega soo kordhiyay isbitaalka Xayaat waa isbitaal ku yaala guud ahaan gobol ka mid ah 3 ilaa 4 gobol hadal badan hangalku buuya harunta caafimaadka ee Xayaat Baydhabo iyo wayba iyo kiyaale suugo qudaarta kale faahfaahin intaas dheer wayba isan kula hariir kortaan telefoonada nambaradii oo shalay eberli halli 9 ama telefoonka kale oo usay eberli halli 8 ama telefoonka kale eberli halli 9 eber haysato moodo maaso hor rabba roob bushada wulay fadaw oo Xayaat hospital furunyo fawaal ay siin labana bulshooyi hadeera iyo haysiin daaweeyo harunta caafimaadka ee Xayaat Hospital